magacaygu waa jaamac cali cismaan ku dhashay gobolka Sool ku barbaaray gobolka Sool kamid ahaan jiray ciidamada Puntland waxaan tababar ku galay Abqaale kabacdi waxaan aaday Jubbooyinka taariikhdu xilliga waxay ahayd baan maleynaya 2017 waxaan aaday marka Jubbooyinka gaar ahaan gobolka Kismaayo waxaan ka shaqaysan jiray muddo oo shaqadeedu ay u badan tahay dhuxul oo dadku dhuxul ay ka ganacsadaan dad jara iyo dad soo gataba anu marka waxaan ahaa dadka soo gata kabacdi gaari waan ka haystay gaarigii waan meel dhigay gaarigii markii aan meel dhigay oo aan muddo ka shaqaynayay bay halkaas nimanka leeyahay ururka al-shabaab oo argagixisaday bay halkaas igu qabteen waxay igeeyeen degmada Badhaadhe waxaan u xidhnaa muddo adigu 3 bilood waxay igu yiraahdeen maalinta dambe ay yimaadeen waxa laga rabaa lacag madax furasho oo $3,000 gaaraysa waxaan ku rimahayo lacagtaas waa iga tageen muddo markay iga maqnaayeen haddana waa igu soo noqdeen waxay yiraahdeen haddaan nala shaqayso ka waran go'aan baan markaa waxaan ku qaatay nimankii inaad ay waxa weeye godka kugu hayaan iyo inaad adigu tala gaadho go'aan gaadho waa labada mid marka waxaan go'aan ku qaatay inaan yeelo taydana aan ka wato markaan chance helo waxa weeye chance-kii ku shiro nimankii waa yeelay way soo kaxeeyeen waxay keeneen jilib baan waxaan joogay 2 bilood jilib haddaan 2 bilood joognay maalinta dambe adigu rag badan bay meesha ku ururiyeen waxaan noqonay adigu 60 nin maalinta dambe noo yimaadeen waxay nagu yahay tababar baad galaysaan tababarkii baan aadnay tababarka waxaan ku galnay gobolka Bu'aali meel webiga hoostiisa webiga ku dhow jiinka webiga baan ku galnay tababarkaas wuxuu socday muddo 4 bilood macallimiinta waxa weeye waxa la dhihi jiray macallinka tababarka haystay waxa la dhihi jiray Bishaar kalabaadna waxa la dhihi jiray Diris waxa ku jiray mid leeyahay Xuseen kulli saddexda waa garanaya waa saddex nin ugu sarreeyay macallimiinta ugu sarreeyay weey tababarka waxa la igu baray qoryaha uu weeyahay 7 BKM-ka iyo AK47 iyo adigu xoogaa qaraxyo yar yar oo maaragtay laga sameeyo bahashan la yiraahdo fiintooga ayaa qaraxyo laga sameeyaa oo midufika baasiin iyo waa lagu darayaa bur baa lagu darayaa rashka yar ciyaalka maaragtay ay iidaha iyo ay ku ciyaaraan rashka lagu rido kaasa lagu duubayaa marka adigu waa wax fudud oo hadii gaari fudud u yahay baa loo isticmaala laakiin qoriga BKM-ka iyo 7-ka iyo AK47 ba saddexda qori ay meesha nagu bareen kabacdi waxa la geeyay jilib haddaan joognay muddo oo adigu bil ah waana laga soo qaaday waxaana la keenay meel leeyahay Mukayle oo ka tirsan gobolka Hiiraan halka marka waxaan ugu nimid nin kale oo u fadhiya gobolka Mukayle oo gudbiye ah oo dadka aadaya Puntland buuraha Golis dadka loo dirayo u qaabilsan ayaan halka ugu nimid ninkaas marka wuxuu ii sheegay inaan ku qorahay buuraha Golis lagu soo qoray kabacdi gaari candamidna baabuurta qaada jannaale ka timaada oo mooska ka soo qaado ama Hargeysa ha u qaado ama Burca ha u qaado baabuurtaasay waxa weeye nimanka sidoodaba waxay isticmaalaan hadba wixii marka safarkii dhulka maraya bay la shuraakeeyaan marka safarkii dhulka maraya marka baabuurta candamidlaha baan laba u soo raacnay qofka waxa la soo siinayaa maalintii adigu $5 waxaan baa la leeyahay adigu habeen iyo maalin $5 baa leedahay bay dhahayaan marka saasaan baabuurta soo raacnay aniga ninka la socday oo leeyahay Ismaaciil waxaan gobolka waxaan soo maray Guriceel baan ka dignay waxa la soo marayaa Cabdwa waxa la marayaa meesha la yiraahdo Qaloocan Laandheer Qarafo halkaas laamiga laga fuulaya in afmadow meelahaas laamiga laga fuulaya wuxuu gaarigaas tagaya barco markaad tagto hotelka ku digaysa hotelka laba habeen baa joogaysa oo kula soo hadlayaan wada hadal baa jira muutankii kuwii buuraha joogay iyo kaad ka timi labadaba waa la hadlaysaa oo marka wuxuu ku dhahayaa istaanka Ceerigaabo tag baabuurta ka soo warqad ka goos istaanka soo warqad aan ku goosnaa soo tagna Ceerigaabo marka habeen baan joognay hotelka aad digay hotelka deg bay ku leeyahay
marka cergaaba haddaanu nimi waxaa habeenkii hoteelka markaan ku degnay ninkii hoteelka iska lahaa ayaa habeenkii markaan seexnay subaxdii noo yimid oo maamulihii hoteelka ahaa kolley isagoon bay la furaakeynayay wuxuu yidhi marka caawa baxaysan maanta iska seex maalintii iska seexanay maqribkii adigu 2 saac markay ahayd oo habeennimo buu ninkii soo baxa waa soo baxnay 2 qof baanu iyo nin aan kaloo aan meesha ugu nimi oo isna xagga ka yimi oo nin oday ahaa isaga meel kale soo marsiiyey kulli annaga isku gaari maana soo raacin laakiin ninkaasi wuxuu joogay Mukayle markaan anigu inuu uu joogay Mukayle waa nin isaaq oo Cabdiqani baa leeyahay marka isagu safarkaygiina lama socon laakiin waxaan ugu nimi cergaabana hoteelkan ugu nimi marka 3 baan nahay 3 dayadii buu soo saaray magaalada meel ka sokayso xagga ka xigta Jiidali baan ka soo baxnay dhinaca Jiidali aan soo baxnay meel qabuuraha magaalada agteeda kale ninkii yaqaan baa yaqaanay halkaan markaanu maraynay wuxuu noo tilmaamay yiri gaariga halkaas ka leedanaya gaarigaas u taga gaarigii baan u tagnay gaarigu waa gaari seer fuucad 2 nin baa wadata 2 nin waa 2 nin hor jeclaa waa niman shacab bay haayeen markaa kulli iyagu soo nagu yiraahdeen oo wax diraysa iyo nagama muuqanayn laakiin waa niman la shaqeeyaan waxa marka dambe ka dhaxlay oo markaan sii sheekaysanay in gaariga iyagu ay u gadeen gaariga seerafta iyaga gaday waa gaari iyagu lagu shaqeeyo nimankaas waana soo qaadeen habeenkii meel reeruhu degay inuu baadiyaha ah bayna keeno oo yuubi xagga ceergaaba ka xigtay habeenkii halkaas joogay subaxii bay nagu soo qaadeen meel wadadan weyn ee yuubi soo aad la marimaayo wada raf aad oo yar oo iyagu ay samaysteen oo gaariga uu ku sameeyay baanu qaadnay buuraha markaa meeshay soo fuusho ay ku dhamaato halkaas markuu way wadadii soo dhamaatay gaariga joojiyay meeshana joogtay meeshan la joogtay maanay haddaan waxay joognay 3 4 nin baa noo soo muuqday 4 nin baa soo muuqday afartii markay soo muuqdeen waa israacnay waxaan tagnay meel leeyahay gacan maroodi oo waa taliska ugu shisheeyay weey cergaaba xiga marka waxaa degan halkaan niman leeyahay duuliyayaal waa nimanka wax soo kala gudbiya xagga ka yimaada ay ka soo gudbiyaan taliska marid loo soo raraa halka gacan maroodi markaan nimo aan 2 habeen joognay subaxii dabbaana laga soo waday adigu dhow habeen baan soo soconay waxaanu nimi aakhirkii taliskii weynaa oo marid oo buulaha golis laga xukumay shugu weynaa baan buuraha waxa jooga niman siyaabo kala gadisan lagu soo galiyay oo raxan weyn u badan nimankaas barnaamijyo been ah lagu soo hogeliyay maxaa yeelay de wiil yar oo awalba iska dayacnaa ama waxa weeye qof waxa weeye nolosha awalba iska qawaday dadkaasay nimankan waxa weeye imaaji gareeyaan dadkaasay ka daba wareegaan da wiil yar oo nolosha iska qawaday hadii la yiraahdo khayr iyo barwaaqan ku haynaayo naagaan ku guurinaynaado lacag baan ku siinaynaado waxbaan u suuqa dibaridaynaa waxa weeye de way iska sahlan tahay nimankaas sida lagu soo galiyay buuraha waqti ugu badan waxa kale oo jooga oo ku xiga niman Soomaaliland u dhashay oo hubka iyo rasaasta iyo dharka iyo wuxuba ay uga yimaadaan Soomaaliland kula difaacanaya maamulkooda meesha waa lambarka labaad baa jooga inaan hadda maalin sheekaysanay oo raxan weyna baa wuxuu igu yiri dharka hadda aan xidhnahay macawsi iyo kabo iyo wuxuu yiri waxa ay keenay nin la yahay cali macaaniye oo isaaq baa dharka ay keenay buu yiri waxa weeye taban jawaan oo dhar ah baa uu qooyi noogay oo lagu soo dhigay marka nimankaasna waa lambarka labaad quwada labada ciidan ee meesha ugu waaweyn ee degan waa labadaas waxaan inta ku darayaa nimankan anigoo og nimankan hadda beesha warsan geliyahay waxa weeye oo deegaanka ah waxay ku hayaan dhaqato waxay ku hayaan handadaad waxay ku hayaan ciriiri waxay ku hayaan in dadkii ay socodkoodii xadadeen oo dadkuba uu yahay jam jiro beerahoodii ma falan karaan oo way u diideen beeyadoodii iyo wixii ay ka ganacsan jireen oo dhan waa u diideen ninka anigoo og marka ninkan la yiraahdo buuraha
ugu sarreeya oo la yiraahdo yaasiin la yiraahdo magaciisa xarakigaana la yiraahdo yama waa nin warsangeliya waa nin salma doorsha waa rumuud loo maro beesha warsangeli wax kale oo uu taro bataataba ma jirto wax kale oo uu tara bataataba ma jirto waa nin inta u fadhiya waa rumuud bas loo maro beesha warsangeli oo lagu qaraabto oo la maanta inta beesha adiga keen hebel dil rag badan bay ku laayeen buurta dhow iyo 10 gaaray oo dadka deegaanka waa la ogyahay buntland oo dhan iyo ummadda dhan baa ogtahay warsangeli xitaa beesha warsangeli waa ogtahay oo ay ku laayeen meesha raggaas waxa la yahay isaga loo maraa anu markaan mirigii soo galay markaan taliska joogay shambari bay waxay ugu qoreen meel la yiraahdo dhul oo taliska ku dhow ay ugu qoreen ciidan yaro 20 oo degan oo Soomaaliya oo degan baa leeyay ciidankaas waday oo ahaanaysa halkaas joogaysa shaqooyinkana bartaas ka sii wadaysa adigu waxaan 25 meelahaas 25 bay u degan uma degana ciidan badan oo urur awoodda ma laha manku waxaan sidoo kale dadka khalkhal bay geliyaan wax beena oo riwaayada bay dadka tusaan meel kasta waxay taagayaan 5 nin 6 nin oo laga arko oo leeyahay halka walaal shabaab baa joogta halka shabaab baa joogta wax awood oo ay leeyihiin ma jirto haway gacan maroodi waxa jooga waa wax dhowr iyo 10 nin meel kale oo daraax leeyahay dhaxaa wax jooga dhowr iyo 10 oo aan taliska ahayn taliska waxa jooga waa wax yar laakiin wixii bay kala qaybqaybeen meel baa farxad u taagan wuxuu waa wax saas taliskaas baa marka aan u joogay taliska intii aan joogay wax hawlgal ah oo weyn oo dhacay ma jirin hal maalin baan soo tagnay oo la yiri waxa la aadayaa galgala maalintaasna waxay ahayd ku dhufo ka dhaqa ma ahayn hujum ma ahayn hujum jidgooyana ma ahayn marka waa soo tagnay rag 40 baa meelaha laga soo ururiyay oo anigu aan ka mid ahay waa soo raacnay habeenkii waxaan soo dhexdaan soo seexanay maalintiina waa iska soo meelahaas iska soo harwaraagleynay asarkii qorraxdu markay dhacday baan buurta galgala afkeeda meel ku dhow dabadna afar xabbo hoobiya un baa la riday afartii xabbo hoobiyaha markay la ridayna cidiyaha baxay waa bara yaacnay intii la ciidanka soo chief baalkeeda tan raadiyaha bal ciidankii waa soo yaacay markuu wixii waa carab xitaa qaad baa alaabta caagado iyo khasnado iyo meeshii kaga tagay waa carabtay marka sidaas aan ugu laabanay taliskii marka anigu intaan joogay wax dagaal oo weyn oo dhacay ma jirin dagaalkoodu wuxuu qaybsamaa nimankan saddex buu dagaalkooda u qaybsamaa dagaalka koowaad waxa la yahay hujum dagaalka aan soo noqoshada lahayn hujum baa la yahay dagaalka labaad waxa weeye waa kameyn ee jidgooyo dhigtaan oo waxay jidgooyada intay waxay adigu ka heli karayaan ka helaan ay laabtaan ka labaadna waa ka ku dhufo ka dhaqaaqo intii lagu soo dhawaado lagu soo tuurayo wixii ay hayaan waa hoobiyo xabad kale rimay hoobiyo bay soo sureen marka saddexdaas waxay ka turjumaysaa inay wali joogaan oo isdareensiin weeyii inay ciidanka wargeliyaan inay wali joogaan bay uga dalneeyeen wax macna oo weyn kuma sii jiraan taas markii aan ka laabanay hawlgalka aan galgala ku soo qaadnay oo arbushka ha markii aan ka laabanay oo aan ku noqonnay taliskii oo anigu aan tagay taliskayga dhulcudul baa maalin maalmaha ka mid ah adigu 3 casho ka dambeysay meelaha baa wiilka yarka oo reeraha meesha degan meesha waxa degan dhowr qaba warsangeligaas oo badan iyo tiinle iyo qolyo kale iyo diga marka wiilka yar wuxuu ahaa qabiilka leeyahay tiinle wiilkii yarka marka wadadii ku soo lumay wadadu waa waxa weeye roob markuu doo bay ku lugeeyaan marka wadan lugeed roob ah oo dhulka tubaal dareemaysid baa dhulku wada leeyahay marka wiilka yar reeraha marka ku soo guuray hay meesha oo reeraha ku cusub hore u digi jiray ma ahayn marka wiilkii raba noo soo galay wiilkii raba meesha ku qabanay isagoo xiriir dhex taagan baan baarnay oo wiilkii raba qabanay wiilkii raba anagu wareysanayna baa waxa noo yimi ninka la yiraahdo Ilyas oo ah madaxa qaraxyada Ilyas baa leeyahay waa madaxa qaraxyada waa nin aad iyo aad waxa weeye dibiyada waaweyn aad uga shaqeeya ninkaas marka wiilkii anagu haraysan wuxuu yiri war wiilkan yar buuxa markaas waxaan ku waa wiil yar soo lumay wiilkan reeraha ka soo lumay markaas maxaa u dili weydii arintay ugu yaab ka badlay maxaa u dili weydeen markaas waxaan ku yiri maxaa lagu dilay wiilkan yar reeraha ka soo lumay oo qobna aan wadan askarina aan hayn maxaa lagu dilay
markaasuu yidhi waa jaajuus markaasaan ku yidhi maxaad ku ogaatay jaajuus ma lagu waxyooda adiga waxyi miyaa kugu soo degin markaasuu wuxuu igu yidhi waxyi iguma soo degin dhiig baa kaa hadlinaya walwuusan wax kale dhihinay bilaysan dhiig baa kaa hadlinaya marka dee inaad qabato wey moogta waxaan haddii waxa weeye anu markaas aan dareemay moogta inaan dee waa inaad dee dareenkaaguna waa inuu joogaa waxaan waa cadow anu markaas aan isqabto sheekada intaan bedelayn waxaan ku yidhi dhiig iga hadlin maaye dad islaama baynu nahay wiilka yarna waa dadka muslimka ah hadduu dee wiilka yar dambiile yahayna dee dembigiisaa lagu qaadaya hadduusan dambiilo reeraha yahayna dee cidina waxa weeye cidina wax yeeli mayso keligaana shabaab ma tihid baan ku yidhi keligaana shabaab ma tihid dadku innagoo dhan shabaab waana waxaadan adigu go'aan aad adigu iska leedahay ma qaadan kartid go'aankan wax ku fulin karnaa waa go'aan aan wada dhan baan ku yidhi dabeedna waa naga laabtay adigu wiilkii yaraa waa sii deyey wiilkii yaraa sidaasuu ku helay xorriyaddiisii sidaasuu ku tegey sidaa hadduu ku tegey annagu ninka marka halkaas maalintii labaad buu habeenkii labaad oo xilli annagoo salaaddii subax buu haddana soo laabtay maxaadiru isu taagay maxaadiradaas marka aad dareentay anay igu socotay maxaadirada isu taagay mid aniga wiiladan lahaa wey macnaha wuxuu dareensiinayey qalbigayga inuu u fahansiiyo shabaab waxa weeye wuxuu ninkan meel fog buu uli joogaa markaasuu intuu hadlay isagoo dee ii dul maraya maxaadirada wax ka soo sheekeeyey buu wuxuu yidhi gobolka laascaanood garoowe qardho boosaaso dhammaan waxaa jooga waa gal waana la dilaya markaas waxaan ku dadku gaal ma wada hadlay intaad islaawad hadara dadku gaal ma wada aha maxaa dadku gaal ka wada dhigay markaasuu yidhi maada markaasaan ku yahaa anaa og baa ku yidhi wallahi anaa wax kala dhihin anaa og baa ku yidhi dadku waa islaam markaasuu yidhi ma aayad baad u haysaa markaasaan ku yidhi aayad baan u hayaa halkaa markii maraysay baa oday isaaq oo odaygaan kuu sheegay markood ceergamaan isku soo raacno isaaq oo cabdiqin la yidhahda baa waa sheekadu waa xidhantay lama mujaahid baa tiinay dadkuna odaygaasa marka waa la filin laakiin xoogaa nin ka reer magaalsan buu ahaa odaygaas laakiin waa la filin odaygaasa markaa wuxuu yidhi sheekadiibu wuxuu u dhigay si kale oo dadban wuxuu yidhi dadku gaalma wada aha laakiin shareecadu markay tagto boosaaso iyo qardho iyo garoowe iyo sool ayaa wixii gaalana waa gaal wixii muslimna waa muslim taas waa macquulay moogta laakiin ummad dhan baa wada gaala oo islaama oo waxa weeye weligood islaam soo ahaa baa gaala baa iga deg weeyay marka arrinta ninka aan iska raax odaygaas markaan dhexdhexaadiyo laba mujaahid baa tiin iska kala taga sidii baan ku kala tagnay arrinta aniyo Ilyas waxa weeye halkaas ay ka bilaabantay markii dambena habeenkii dambena intuu ii yimi xilli adigu hal saac oo subaxnimo ah intuu noo yimi wuxuu yidhi siciidow qorigaaga soo qaado waxaynu aadaynaa meel baynu ka soo laamaynaa waxa weeye meeshaasaynu ka soo laamaynaa qorigaaga soo qaado caagadaada biyaha soo qaado warkaas caagadeedii baan soo qaado moobail kale ka imo buu yidhi meeshu cateena ma leh anu marka mobailkii intaan dansaday baan jeebka ku ritay caagadeedaan soo dhaansaday funtahaygaan soo xidhay qorigaygaan soo qaatay xabaddeedaan soo gashaday waxa weeye diyaargarow baan galay sidaasaanu ninka la yahay Ilyas isku soo raacnay waddada af urur soo aada baan soo qaadnay dhexda markaan soo maraynay buu ii warramay oo uu yidhi waddadani waa waddadii af urur oo hadda ka hor aan af urur ku weeraray oo aan af urur ku weeraray markaasuu ii warramay anu marka hore shaki baan ka qabay markuu ii warramay baan xoogaa waxaan dareemay inuu marka hore shaki weyn baan ka qabay oo ii warramay waddadani waa waddadii af urur hadda ka hor baan ku weeraray wuxuu kale igu yidhi arrinta aan la yaabay siciidow af urur waagii aan tagnay aan galnay 8 nin oo hartay baan ku dilayay anaa gacantayda ku dilayay markaasaan uurka waxaan ku yidhi uma dishay markaasaan waxaan ku yidhi uma dishay markaasuu yidhi haa markaasaan waxaan ku yidhi walla dibi ma dishay baa ku yidhi walla wax kale u dhigay uurkaa ka yidhi walla dibi ma dishay baa ku yidhi marka adigu waxaan nimi marka meel la yidhaahdo kax bilcilli marka halkaasuu igu warramay wuxuu yidhi halkan waddooyinka ku kala baxa oo waa meel barxad weyn oo qabuuro iyo waxbay leedahay wuxuu meeshan waddadaas halkaas aadaa inagu waddadii afur hadda waa ka baydhanaa waddo kaleaynu qaadaynaa saas igu warram marka saasaan waxa weeye toggii weynaa oo hadda magaciisu wey togga waxaa la yidhaahdaa
تجو وحلا يدا هذا مقع سوي خلدين هاي وحلا يدا هذا تجا القرآن وتجا سوق هيدا بس حل 8 ساعة تجي مركان من عاجده بينودك أو إيش هو دولة هي بيقول عرفت عن قصة قاضي لهاي عاجده هي باندقني مركان دي مرة كرتان عاجده إذا قاضي هو يفلق كافش المية مرة عاجد بان قاضي إن ما واصح له علاقة ماشي أي تالي مركي عامني هو حيويلي بروح نقول بيقول علاقة ماشي تالي وقت شوفنا بيقول مركان سووا نقول أرد نوصل قاضي علاقة أرد نوصل قاضي علاقة أنا مركان وضدي بعد سنة نوصل كسرنا حاجة سن ساس وكلام نسعني وضدي بعد ساس وضدي برتكيني وأنا تنفرست جيت قول على هوستي بروح نقول نوصل قاضي علاقة علاقة بيدور واستبقى الأساس وسكر عنك أو يقدر قاضي هذا حق أبو علاقة أي تالي علاقة هو بحال كان بيها لغو طعمي وخربتك وعاقة حاوي علاقة وخربتك اسمه ماشي ويالا وفضودية مركي كسو بحان وماشي كسو ويردان أفرو تلو أفرو وما يمانكرا وماشي كسو نستان بيه كشوفتان هذين كده كسو سودان مالنتي مالها صومر مران مخرج كده إيمانا يعني ماشي اللي يها أفرو روح له مركا غربت ماشي ويالا ونسينه كسو نستان أي واحد ماشي ويالا مركا واحد يقول إني قاعدان وميل كلا أي وقعتان مركا هذا نص قاعد في علاقة مركا يدونين وهذا شنط الله ويا دقائق waxaan ku yiri dalabada uu ka yeelay magarad kii weynaa ba xoogaa qaar kala soo kacay waa u dhameystiray labadii qori baan ka soo furay meesheedii baan cabaar iska fariisto waxaan siri tii anigu markaa waxaan ku talagalay geeri iyo nolol inka raga geeri iyo nolol buu dhaxeeyaa mugta markaa waxaan siri iska ordinay ilaa haduu wadankan ma kala aqoon waxaan siri iska ordinay haduu doono xabada kuwa intay maqlaan bay meelahan ka soo yaaci karaa ilaa aduu moogid meesha wax degeli marka go'aan baan qaatay rasaasna waa haystay adigu qol iyo konton xabbo oo rasaas iyo saddex qorina waa haystay kaygi saddex baan haystay iyo adigu rasaas gaaraysa 300 xabbo waa taan malaynaya adigu khasnada marka loo afar boosh igu jiray iyo sideed khasnado afar iyo la saddex toddoba khasnado baan haystay buuxa marka laba dhagax oo waaweyn oo xagga dambana ka xidhan intaan dabada la galay waxaan siri wixii eeriyadaas haday ka soo yaacaan haysdiin nolol haysku dhiin meeshu waa meel aad cimiladeedu fiican tahay hadii xagga dagaalka laga wado waa buuro iyo dhagax noqdo ninkii aan baqay waxa weeye hore looma qaban karo kaan baqdin ku jirin hore looma qaban karo laba dhagax baan galayo xabaar baan meeshii indheeyo wadanka dhan baa saafiriyay markaan arkay inaan wax dhaqaaqaya jirin baan intaan waxay xidhay wadada ku soo taagay ودي كلسوني وحن كوها يستوى ودري مو أول وحن كده بغير ودر لوجد تلقى أنا ما كيس كده إحنا قلت ممكن عقل مثير وشغال الرياضة بغير تحسن كده لكن هذا وحنا يستي وتجاري ودري بان عكس صوصار ودري بان عكس صوصار ودري هذا عكس صوصار الحل المخربة بعد سنقر مغرب أنت واحد يستي هذا واحد يستي وحقيقي بحي عارف يوح يخشوا دوادين مركب حل المخرج الدبليس الصور أنا مركب ويا عن سري الموبايل وحقوق وحسمانية بان استقبل ورد أنا ضحك صار صعب لو حن سيدو مركب يدو واحد هذا أي كوجادان هذا دون قليل اسكبر عن كرت نيكي بان دول عدل جيو نيكي بان ورستو نيكي بان صفي عن جوه رمضان وحن ويدي حقيقة بالله أنا يقول له مركب سوي أفكر ربك يقول له لاج بان ويدي إلا مركب يروح يقول له وددني اللاج بيجش المقت مركب صار حن كل لاج أنت تجتمع مركب سوي لاج مرة لكن أفكر ربك كوكو أبي markaasaan ku wada gaari isla markaas uu halka ka dhaco wada jid gaari baa ku soo dhacay jidkaas la gadi meeshii baan ka baxay adu ma ninkii baa waxaan ku yiri lambar magaalada ah isi hada ka taqaano ninkii wuxuu siiyay laba lambar mobilkiisina waa ka qaaday moobti mobilkiisa waa ka ururiyay waa hal mobil buu soo mobilka waa ka qaaday haduu doono wuu wici karaa adiga ma ogi aan baadiyahaas u dhanba iska shaqeeyo waxan oo dadkaas ka ilmadooda marka laba lambar buu siiyay wuxuu lambarkaas waa nin odayo meesha jooga lambarka kalena wuxuu igu yiri waa nin kale meesha jooga ninkii marka xaqii waxaan ku yiri afro aadi maayay waxaan aadayaa laag buu tilmaamay markaan tii laag aado xogaa socday waan jiiro soo galay meeshii wadadii bay soo dhacday wadadii baan qaaday leerkii magaalada ay baxay ciidankii ma intaanan wadadii markaan helay oo wadadii aan tagay waan telefoonkii la soo baxay labadii nin uu ii sheegay waxaan wacay nin ahaan
waxaan ku warnay waxaan rabaa inuu ninka tago askarta meesha joogtay inaad nooleed igu gudbi markaasuu maya gobolka iga baxay dadku dawada isku baxay waa ka tagay odaygii kale baan wacay marka oday kale oo nin oday igu tilmaamay odaygii haddaan wacay odaygii baan wacay odayga waa uu xamay noqday marka hadii wax baqday markii uu ka soo dhawaado magaalada leeshkeeda waa ii muuqdaa oday baan waxaan ku yiri warno nin hafti aan hay shabaab baan ka imi hub baan wataa nin oday aan wala igu tilmaamay waxaan ka rabaa wax kale adiga kaama rabee askarta meesha joogta telefoonka in aad igu geyso iga warbixiso kaliya odaygii si buuyaana kugu soo celinayay odaygii mar dambe soo wacay inuu wuxuu yiri shabaab waa iska dhibantay dadku waa nimankaas waa niman hawl badan xilliguna waa xilli habeenimo niyo wuxuu yiri odaygaas anigu waxaan ku sheegay arrin xaqiiqa caawa isdabar beebi ima qarin hadalka caawa niyo isdabar waagu haduu bariyana waa kula joogaa saasuu yiri go'aankii ugu dambeeyay haduu siiyay marka haraad iyo waxba ay qabtay oo ciidankina waa ku dhawahay waxaan isla markaa arrinta haraad dhiman lahayd iskaga dhawow ninka odayga ku tashanay ciidankii waa ku dhawaado meel ku dhow baan iska fariisto cabaar baan waxa weeye iska qabowsadayo aqligaan ka shaqaysiyo waxaan si nimankan marka hadda xabad baaqa u rido waxa weeye waa niman shabaab iyo balaayo adiga iska baqeen oo isla kaajiirayaan alle waxa samaysaa qayli qof qaylinaya tababar ciidan ama iska dareemaya wuxuu ciidan waxa loo tababaraa qof qaylinaya inay sii dilin qofduusan wax ku soo ridayn waxay u tababareen ciidanku ilan waa ilaaliyihii wadanka qof qaylinaya iska dili karaa waa mamnuuc waxaas marka ciidankaas ku dili maayaan qayli qof qaylinaya waana iska aaminsan qof qaylinaya ciidan dili waa qayliye marka qaylan bilaa waa qayladii baan ku soo galay wadadii baan kala baydhay toodii baan la galay difaaca afkiisii haddaan imi laba war baxayraha iga martay hub baan wataa baan ku hubka dhig baa leeyahay hubkii baan dhigay hubkii haddaan dhigay alle kaxeeyay cashaa lay keenay biyaa lay keenay meel baa leegay dharkii baa leega bedelay waa seexday waa qubaystay hadhow baa barnkaas xilleeyay nimankii baan u warramay bas habeenkii baan la joogay xilligaan u tagay 6 saac bay ahayd oo haway habeenka barkii intiisa badneed waaba tagtay markii dambena aroortina waa soo qaadeen sidaasay waxay ugu soo wareejiyeen madaxtooyadana waxay keentay saldhigana waxaa markii dambe ay timi ciidanka BSF baan imi xarunteeda wasaas weey ciidanka BSF intii ay hayeen anu tikul ciidan waxay weydiinayaan waxaan bal iga qaadanay anu ciidanku ma dhaxeen anu waxaan badhihi lahaa BSF hooyaan badhihi lahaa yeelay waa ciidan marka hadda shaqooyinkiisa aad aragto waa ciidan dhexdhexaad ah waa ciidan aan qabyaalad lahayn waa ciidan ummaddu ay isugu mid tahay حتى كوا الشباب كله كوا الشعب كله إيجا لما أنتوا واسكوا حقوق عن والله هذا بين أنا بين شيء هذا عدينا يعني عسكري BSF شغالية كمحبوس وهل كي كنت أو سواق طيب واسكوا حقوق وحنا والله بالله طلع قدر وحنا اسكو حقوق باون اسكو جوجل باون اسكو بيانو اسكو راشين باون ما قرأت waxaan kaloo ka yaabay meesha hadda xabsiga ah oo xabsiga BSF aniga hadii wax laga weydiinayo anigu waxaan badhihi lahaa masaajid ummaduna waa ogtahay waxa weeye Soomaali badan baa tagtay oo og Soomaalidu way ogtahay BSF waa dad wax badan ka fakaraya way taas waa taa waxaan kaloo ku darayaa waxa yaala meesha xabsiga sababta aan u iri masaajid oo kala dhigana gudaha markaad gasho hadda masaajid Soomaalidu waxa way laga yaabaa in suuqa markii la joogo wax badan la isla dhexmaro oo leeyahay BS wasaas iyo BS wasaas waxaan halkan ka cadeynaya kitaab aan oo meesha ma jiro hadduu quraan yahay iyo hadduu fiqh yahay iyo hadduu ahkaan yahay iyo hadduu naxwo yahay iyo hadduu duco yahay iyo hadduu safiina salaad yahay wax ka maqan xitaa waxaan ku arkay kutub ka shaqeeyay xoolaha baan ku arkay labada anu hadda waxaan walaal waxaan ugu baaqayaa aan doonaya halka inaan ka cadeeyo oo markii anu aan kamid ahaan jiray oo dhalinyarada la soo lumiyay waxaan rabaa mar labaad inaan waxa weeye baaq u jeediyo marka dhalinyarada oo anu aan kamid ahaan jiray
oo la lumiyey waxaan rabaa mar labaad inaan baaq u jeediyo waxaan leeyahay wixii laynagu dhihi jiray waa been wax allaale wax ka jiraa ma jiraan puntland anaa la jooga puntland haddii laydinku yidhi oo ay nagu dhihi jireen waxbay dilaan waa been wey haddii wixii ay nagu dhihi jireen laydin dhihi jiray puntland waxbay xidhxidhaa waxbay meel xabis gelisaa wax allaale wax ka jiraa ma jiraan puntland waxay diyaar u tahay qof kasta oo Soomaali ah oo nimanka sharwadayaasha ay ka lumiyeen waqtigiisii in ay dib ugu celiyaan noloshiisa puntland diyaar u tahay puntland taasi diyaar u tahay puntland diyaar uma aha qof Soomaaliya inay dhibaatayso ma dhibaatayn doon waxaan kaloo rabaa in halka uga baaqo dhalinyarada aan ka mid ahaan jiray marka ugu horeysa idinkoo aan biqin kalsooni idinka lumin ciidamada puntland meel kasta ay joogaan meel kasta meeshii idin dhow isu soo dhiiba ciidamada markaa isu soo dhiibtaan ciidamada waxa ay u dhisan yihiin shaqadiina inay idinka dhibaatada leeyna siiyay ay wax ka qabtaan ciidamadu waa idin kaxaynayaan wax allaale waxay idin yeelayaan ma jirto waxay idin geynayaan xarumo laydinku talagalay oo laydin qorsheeyey oo adab kasta oo qof bila'aan ku noolaado uu yaallo meesha markaa tagtaan oo ku nasataan waxay idin imaanaysaa madaxda ay idin waraysanaysaa madaxdu waxay idin siinaysaa cafis madaxdu waxay idinku wareejinaysaa xigtadiin xigaalkiin odayaashiin aabbayaashiin waalidkiin waxaa intaa raaca qof kasta xorriyadiis meeshuu rabo ma aha khasab iyo jujuub iyo halkan noqo iyo halkan gal iyo ma jiraan waxaas iyadoo waalidkaaga marka lagu wareejiyo gacanta lagu saaro haddana waxaa lagu sii weydiinayaa meel allaale meesha intaa waxaa dheer madaxdu waxay diyaar u tahay inaysan cidlo ku dirin ay diyaar u tahay nimanka saraakiisha iyo ciidankaba oo ciidan saraakiil iyo iyagaba oo saraakiisha oo ku sugan buurahan golis oo jooga oo u dhashay Somaliland waa niman waagi hore waxa madax u ahaan jiray in la yiraahdo Cali Macaani haddana waxa madax u ah nin kale ninka magaciisa hadda waxa weeye anu dayr baan joogay oo waxaan magacyadooda hore uma heli kartay laakiin nin kale hadda waxa weeye madax u ah nimankaasi marka waa niman shaqadaas meesha u jooga waa niman ay Somaliland iyo gobolada hubka iyo rasaas uga yimaadaan iyo alaabtoo dhan uga timaado waa niman meesha u jooga inay maamulkooda ka difaacdaan maamulka Somaliland wax kale oo ay meesha u joogaan bataatan ma jirto iyo inay Puntland dhibaateeyaan